gabaran haddii aan kuu sheego shaqada aad maanta hayso laga yaabo inaysan jiri doonin 10 sano soo socda. Maanta dad badan waxay u malaynayaan in AI uu yahay wax fudud, laakiin xaqiiqdu waa mid ka duwan. Sirdoonka macmalka ah AI ayaa si degdeg ah ayuu u korayaa, si ka dhaqso badan sidii la filayay. Wuxuu qaban karaa shaqooyin badan oo dadku samayn jireen, xitaa si ka fiican. Wuxuu abuurayaa fursado cusub, laakiin sidoo kale wuxuu baabi'inayaa shaqooyin badan. Muuqaalkan waxaan kuu soo bandhigaynaa 10 shaqo oo laga yaabo inay baaba'aan sabab la xiriirta AI, iyo waxa aad samayn karto si aad ugu badbaado. Inta aan bilaabin, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ii saartid iyo like. Mahadsanid. Shaqaalaha gelinta xogta data entry. Shaqadani hore waxay ahayd mid muhiim ah, laakiin maanta AI ayaa si buuxda u qaban kara. AI wuxuu xogta u habeeyaa si degdeg ah oo sax ah, khaladna ma sameeyo. Shirkado badan ayaa durba isticmaalaya software si otomaatig ah u gelinaya xogta. Taas micnaheedu waa shaqaalaha bani aadamka ah si tartiib ah ayaa loo bedelayaa. Khadnadlayaasha ama cashiers. Markaad tagto dukaamada waaweyn, waxaad arkaysaa mashiino aad adigu iska bixiso. Tani waa bilowga isbeddelka weyn. Mashiinada self checkout ayaa sii badanaya. Dukaamo badan ayaa doonaya inay yareeyaan shaqaalaha si ay u badbaadiyaan lacag. Mustaqbalka waxaa dhici karta in gebi ahaanba aysan jiri doonin khasnadlayaal. Markets, wicitaan suuqgeyn. Waqtiyadii hore, dad ayaa ku soo wici jiray si ay wax kuu iibiyaan, laakiin maanta AI ayaa qabanaya shaqadaas. AI wuxuu wici karaa kumanaan qof hal mar. Wuxuu leeyahay cod dabiici ah, wuxuuna fahmi karaa jawaabaha dadka. Tani waxay ka dhigaysaa shaqadan mid si degdeg ah u dhabar go'aysa. Shaqaalaha adeega macaamiisha. Maanta marka aad website gasho, inta badan waxaad la hadlaysaa chatbot. Chatbot ayaa noqday kuwa aad u caqli badan. Waxay fahmi karaan su'aalaha, waxayna bixin karaan jawaabo sax ah. Waxay shaqeeyaan 24 saac maalintii, mana dalbadaan mushahar ama nasasho. Shirkado badan ayaa doorbidaya AI halkii ay shaqaale siin lahaayeen dad. Darawalada gaadiidka, truck drivers. Tiknoolajiyada gawaarida iswada ayaa si xawli ah u hormaraysa. Shirkado waaweyn sida Qualogiska ayaa maalgelinaya gawaaridan, sababtoo ah waxay yareynayaan kharashka waxayna kordhinayaan badbaadada. Inkastoo oo aysan weli si buuxda u baahin, mustaqbalka dhow darawalo badan ayaa shaqo la'aan noqon kara. Shaqaalaha bangiyada, bank tellers. Dadkii hore waxay u baahanayeen inay bangiga tagaan si ay lacag u diraan ama u qaataan. Laakiin maanta wax walba waxaad samayn kartaa ama ku samayn kartaa moobilkaaga. Adeegyada bangiyada ama AI ayaa fududeeya adeegyada. Bangiyo badan ayaa xataa xiraya laamihii jiray. Tani waxay hoos u dhigaysaa baahida shaqaalaha bangiyada. Turjumaanada heerka hoose. AI ayaa hadda turjumi kara luqado badan isla markiiba. Waxaad ku hadlaysaa hal luqad, AI ayaa u turjumi midka kale si toos ah. Shaqooyin fudud ee turjumaada si tartiib ah ayaa u baaba'aya, laakiin kuwa xirfadlayaasha ah iyo hal abuurka leh weli waa loo baahan doonaa. Shaqaalaha warshadaha. Warshado badan ayaa horay u isticmaala robotyo.
robotyadu ma daalaan, khaladna ma sameeyaan, waxayna shaqeeyaan 24 saac. tani waxay kordhinaysaa wax soo saarka waxayna yaraynaysaa kharashaadka, laakiin sidoo kale waxay yaraynaysaa shaqooyinka dadka. qabanqaabiyayaasha safarka travel agents. maanta qof walba wuxuu safarkiisa ku qorsheeyaa internetka. waxaad dooran kartaa hotel, dulimaad iyo xataa meelaha aad booqan doonto. AI ayaa xataa kuu samayn kara qorshe safar oo dhan daqiiqado gudahood. tani waxay hoos u dhigtaa baahida travel agents. qorayaasha contentka heerka bilowga. maanta AI ayaa qori kara maqal, qoraal iyo xataa script. tani waxay halis gelinaysaa qorayaasha cusub, laakiin kuwa hal abuurka fikrad cusub iyo cod gaar ah weli way guulaysan doonaan. gunaanada. runta waxay tahay AI ma keliyo baabi'inayo shaqooyinka, wuxuu bedelayaa adduunka, laakiin tani ma ahan wax laga cabsado, waa fursad. haddii aad barato xirfad cusub, aad la qabsato teknolojiyada, waxaad noqon kartaa qofka ka faa'iidaysta isbeddelkan. su'aashu ma ahan shaqadaadu ma baaba'aysaa, su'aashu waa ma diyaar baad tahay inaad la qabsato. baro, kobac sameey, isbeddel. mustaqbalku wuxuu leeyahay kuwa isdiyaariya. haddii aad ka faa'iidaysatay muuqaalkan, fadlan waxaan ka cabsanayaa like, subscribe, la wadaag asxaabtaada ama dadka kale. aad ayaad u mahadsan tahay.